wasiirada dakhliga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya gaar ahaan laanteeda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay inay qabteen 7 kilogram iyo lacagaha 8 wadan oo dunida ah oo si sharci darro ah wadanka loo soo galiyay isla markaana sarifkeeda lagu qiyaasay in ka badan 60 milyan oo bir. sidoo kale wasiirada dakhliga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa hay'adaha amniga ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa cadeeyay in la qabtay 4 qof iyo hantidii ay wateen oo si sharci darro wadanka uga saarayay isla markaana ay xidheen gaariga waday hantida iyo darawalkii gaariga kadib markii ay isku dayeen inuu baxsado isla markaana la qabtay. wasiirka dakhliga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Adanach Abeeba wasiirka ayaa shacabka deegaanka Soomaalida uga mahadcelisay dadaalka ay ka geysteen taageerada qabashada sheegida xakamaynta iyo la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah ee wadanka soo galaya ama ka baxaya. Maaliye ku-xigeenka komishineerka canshuurta Itoobiya laantiisa dawlad deegaanka Soomaalida Mudane Axmed Ugaas ayaa tilmaamay in qabashada hantidan sharci darrada ah ee wadanka sida sharci darrada ah looga soo saaray ay hay'adaha amniga ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka deegaanku gacan weyn ka geysteen isagoo shacabka dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan bulshada ku nool maamulka magaalada Togwajale uga mahadceliyay la dagaalanka kontaroolada badan iyo ganacsiga sharci darrada ah hay'adaha amniga. xalat wala markay ahayd 9kii dambe saqda dhexe ahayd lacaga qalaad oo sharci darro wadanka looga bixinayay oo hantida wadanka dibadda loo saaray yaa adugu xogo iyo shacabka caawimo fara badan naga siiyay dabadeed gacanta lagu dhigay. lacagtaas waxay lacag fara badan oo kala gedisan oo laga leeyahay 13 dal oo dunida ka kala mid ah. lacagtaada xogo badan ka bacdi gaariga jaadka lagu qaaday LCG lagu dhoofiyay iyadoo taayir lagu soo xaseeyay in aad ku guuleysan lacagta gacanta lagu dhigo. lacagta hadda waxaan ku xareynay commercial bank commercialka Itoobiya iyo 7 kilogram oo dahab isagana oo laga soo qaaday oo dahabka national bank inta badan oo haya noociisa oo kala ah. dahabkii aad hadda gacanta waan ku haynaa isagana goobtii lagu tala galay baa la geenayaa. lacagtina waxaan ku xareynay commercial bank of Ethiopia qaybta Wajale iyo goobtii lagu qabtay. Cabdiraxmaan Buux, Home Cable TV, xarunta dawlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga.